marka ilaahay jalla wa ala naguma qiimeynaya waxyaabaha dadku ay dibadda ku haystaan ee bini aadanka waxa lagu qiimeeyaa dhaqanka wanaagsan ee noloshiisa ku dhex jira hadday iimaan tahay hadday alla ka cabsi ay tahay hadday cilmi ay tahay hadday taqwad ay tahay hadday akhlaaq wanaagsan ay tahay taasaa ilaahay kugu jeclaani haddii ilaahay ku jeclaadana bini aadanka oo dhan baa ku jeclaan cabdullaahi ibnu mubaarak raxmatullaahi calayh ayaa soo galay magaaladii baqdaad waa cahdigii haaruun rashiid weeyaan magaaladii waxaa laga dareemay dajax sawt baa laga dareemay iyo guux iyo isdhex socod daadna markaasaa xaaskii haaruun rashiid zubayda la odhan jiray ayaa waxay ku tidhi xaraskaygii ilaalinayay bay ku tidhi magaalada maanta maxaa ku soo biiray ii sheega markaasaa lagu yidhi imaam baa soo galaya a'immada muslimiinta ka mid a daadna dadka muslimiinta oo dhan ninkaabay maaragtaan u soo maaragtaan ay kulankiisa masaajid iyo khayrka u soo camirayaan daadna markaasaa masaajidkii jaamica ayuu soo galay 100,000 oo qof dad ka badan ayaa markiiba xalaqada fadhiisatay dadkaasi adab bay lahaayeen cilmi bay lahaayeen alla ka cabsi bay lahaayeen akhlaaq wanaagsan bay lahaayeen culimada qadarkayga ayay garanayeen dadka islaam muuminka bariga iimaanka lagu qiimeynayay muslimiintu diinta isku jeclaayeen caamada muslimiintu culimadooday ku xidhnayd caamada culimaday jeclayd culimaduna caamaday la soconaysay wax baraysay masaajidkii buu soo galay markiiba darsi buu bilaabay daadna sheekhi uu hindhisooday baa la yidhi maxaad u malayn markuu hindhisoodu alxamdulilah uu yidhi 100,000 oo qof ayaa min samiimi quluubihim ayagoo qalbiga ka jecel waxay yidhaahdeen hal mar keliya yarxamuka allah bay yidhaahdeen sawdka ka soo baxay 100,000 oo qof ayaa qasrigii boqorka laga maqlay zubayde way yaabto waxay ku tidhi ciidankii ilaalinayay bay ku tidhi waa maxay qayladaasi waxaa la yidhi dhibaata ma dhicine sheekhi baa hindhisooda waa ducadii loo ducaynayaad maqashaa lagu yidhi daadna markaas qiira qabatay way maseertay haaruun rashiid bay u gashay kicisay ku tidhi ummadda maadaa xakumo amiir u ah mise wadaadkana amiir u ah markaasuu ciidankiisii buu ku yidhi wadaadka magaalada soo galay waa kuma markaasaa lagu yidhi waa cabdullaahi ibnu mubaarak baa soo galay caalimkii reer khuraasaana ee zaahidka muxadidka ahaa baa soo galay markaa buu zubayde ku yidhi naa iska jiibso iska fadhi buu ku yidhi aqalkaaga annagu qoloftaan xakunaa culimmaduna qulubtay xakumaane annagu qoloftaan xakunaa culimmaduna xaggee xakumaan culimmada qulubta yaa ku xidhan maadaama culimmadu ilaahay ay ku xidhan tahay iyakana qulubta dadka ilaahay ku soo xidhaya zamankaas dadka waxaa lagu qadarinayo lagu qiimeynayay iimaanka lagu qiimeynayay cilmiga lagu qiimeynayay akhlaaqda wanaagsan baa lagu qiimeynayay nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa waan iibinayaa meeqaad ku gadaysaa baa lagu yidhi wuxuu yidhi 120,000 oo dirham baan ku gadayaa markaasaa lagu yidhi 20,000 waa macquul laakiin 100,000 dul saarata maxay tahay lagu yidhi wuxuu yidhi 20,000 waa aqalka qiimihiisii waa runtiin laakiin 100,000 waxa weeyaan waa darisnimada aad la darsaysaan cabdullaahi ibnu mubaarak baa daris la ahay markaa darisnimadiisa ayaan ku iibinayaa 100,000 buuhi 100,000 wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'minu wallaahi laa yu'min qiila man yaa rasuula allah qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah nebigu calayhi salaatu wasalaam 3 jeer buu ilaahay ku dhaarto wuxuu yidhi wallaahi baa ku dhaartay iimaan male wallaahi baa ku dhaartay iimaan male oo ilaahay ma rumayn wallaahi baan ku dhaartay iimaan male yaa rasuul allah waa aye baa lagu yidhi qofkaasi waa qofka jaarkiisu sharkiisa ay ka nabadgeli waayaan qofkaasi ilaahay aakhire ma rumayn buu rasuulku yidhi akhlaaqda wanaagsan sidaasaa loo kala iibsanayay dadka akhlaaqda wanaagsanna darisnimadooda dadka dhaqanka wanaagsanne ee ilaahay ku xidhan sidaasay ummaddu ugu xidhnayd sidaasay maaragtaan masaajidda ummaddu u soo camiraysay yaa falidaalika walaalayaal ilaahay naguma qiimeynayo qabiil ilaahay bini aadamka kuma qiimeynayo haddii qabiil lagu qiimeynayo cid abaalahab nebi maxamed adeerkii buu ahaa abu taalibna nebi maxamed adeerkii buu ahaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa hanuuniya weeyaan alhaadi hanuunkana ilaahay isagaa bixiya
ilaaha caza wajalla abu lahab u qadaray inuu gaalnimo ku dhinto bilaal alxabashina hidaaye allaha u qadaray ilaahaasaa hanuuniya marka mansab maaha reerkaad ka dhalatay maaha waxa ilaahay kugu qiimeynayo maadada dadku maanta ay isku qadarinayaan hebelkii lacagta badnaa hebelkii fooqa weyn halkaa ka dhistay hebelkii warshadaha badan lahaa hebelkii darajada weyn lahaa hebelkii gawaadhida waaweyn lahaa hebelkii dukaanada waaweyn lahaa hebelkii bakhaarada waaweyn lahaa maxaa ka dambaysa qabrigiisii yaraana waa kan baa ka dambaysa maxaa ka dambaysa qabrigiisii yaraana waa kan qabrigiisii kullu alladii fawqa turaabi turaab waxaan arlada dul yaalla waa ciid ciidna waa ku noqonayaan dhulku waa ciid aqalladu waa ciid gawaadhidu waa ciid adigu ciid baa tahay lacagtu waa ciid dharkaagu waa ciid cunnadaadu waa ciid daaruhu waa ciid qusuurtu waa ciid aaway dadkii adduunyadan soo camiray aaway nin baa soo galay magaalada markaasuu nin sheekhuu argo wuxuu ku yidhi magaaladii camirnayd i dhexgee magaaladii camirnayd ee dhisnayd baan rabaa in lay tusee magaaladana waan ku cusubahay igee ibraahim aladham baa kaxeeyey allah u naxariistee magaaladii camirnayd baan rabtaa miyaha isoo raac uu kaxeeyo magaaladii buu ka saaray markaa buu yidhi war magaaladii camirnayd ee suuqa iyo macdaarada iyo bakhaarada iyo ganacsiga lahayd baan ku weydiinayaa adiguna magaalada bannaankeygii baad iigu wadaaye wuxuu yidhi magaaladii camirnayd waa dhowdahay ina mari qabuuraha intuu dhex joojiyey buu ku yidhi magaaladii camirnayd waa taasuu ka yidhi wuxuu yidhi waa qabuurihii wuxuu yidhi tan cidda timaadda kama noqoto laakiin dadka magaalada maalin walba 40-50 qof baa ka soo baxda halkana yimaadaanoo halkanaa camirmaysa dadka halkan soo galana ma noqdaan buu yidhi taa way naaqusmaysaa tanna way biiraysaa buu ka yidhi yaa muqafal innagu waxaan leenahay magaaladii baydhabo way dhisantay magaaladu ma dhismine qabuuraha dhismaaya magaaladu may biiraysaa mise qabuuraha biiraya bal iga jawaaba qabuuraha camirmaya waayo dadka magaaladan ku nool maalin walba 50-40 qof baa dhimanaysa oo laga kaxaynaya laakiin dadka qabuuraha gala qabuuraha kama soo noqdaan iyagu marka ta aan laga soo noqon baa camiraysa tan laga baxayo dadkeegu way sii yaraanayaan ta aan laga soo noqonayn baa iyadu camirmaysa waa qabuuraha weeyaan waa qabuuraha habeenada ka mida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam almu'miniin caaisha radiyallahu canha aqalkeedu nebigu jiifay markaasuu nebigu ku yidhi caaisha caawa ma iska kaydayn ilaahay han caabude markaa bay ku tihi ha iska cibaadayso deedna nebigu intuu saro kacay buu tahaaro qaatay uu qubaystay deedna u weysaystay salaad buu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam salaaddii buu nebigu aad u dheereeyey deedna caaisha radiyallahu canha waxay tihi waan gam'ay in yar kadib baan soo kacay aqalkii baan taataabtay agtaydii nebigu ma jiifo waan eegay ma taagna nebigu ma joogo meesha waxay gala dareen oo waxaan is idhi kollay nebigu reerihiisii kaluu caawa u guro reerihiisii kaluu u tegay markaasaa ka soo daba baxay tidhi waxaan arkay shakhsi qabuurihii baqiic dul taagan oo ooyaya oo ducaynaya markaasaan gadaashiisa nebiga fadhiistay markaasaan fikiroon is idhi alla caaishaay waad ceebowday maanta adigana maseer baa ku soo kiciyey xilliga oo waxaad is tiri nebigu reerihiisii kale reer ka miduu kollay u tegay bal doondoon nebi maxamedna qabuuruhu dul taagan yahay uu ooyaya muntasifa alleyl ayaa nebigu salaataleylkii markuu tukaday qabuuraha intuu isdul taagay buu nebigu qabuuraha ayuu dul joogsado aakhiradu nebigu xasuusanaya daadna markaasay caaisha hayar intay u soo noqotay ayay qol aqalkaygii soo gashay gogashiiba hoosta ka gashay markaa nebigu waa u jeedaa calayhi salaatu wasalaam min mucjizaatihi waxaa ka mida baa la yidhi sida nebi maxamed xagga hore wax uga arko ayuu xagga dambana uga arki jiray baa la yidhi deedna markaasuu nebigu markiiba uu arkay uu iska soo noqday deedna ugu yimiday caaisha oo gogashii markaa faraashkii hoosta ka gashay buu u yimiday markaa buu nebigu kor fadhiista wuxuu ku yidhi caaisha maxaa dhacay buu adiga soo jeedee markaa bay ku tiri waxba markaasuu yidhi sawdigii ilaa qabuuraha ay daba yimiday ma markaasay tihi yaa rasuul allah
adiguna waadi kalaad socotaa annaguna waadi kala soconaa bay ku tiri adiguna waddo kalaad socotaa oo aakhiro iyo qabuur iyo maaragtaan xisaab iyo janno iyo naar iyo diin iyo ummad baad ka fikiraysaa annaguna bashar baanoo dumar baanoo waa iska maseeraynaa baa tiri raalli ah oo iska saxay ku tiri waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad ilaahay ka cabsato oo aakhiradu kula weynaato oo mar walba dhimashadu ku hor taallo noloshaada adduunyadu way toosnaan haddaad allihii ku abuuray mar walba aad xasuusan tahay aakhirada aad u socotana ay ku hor taallo in la dhimanayna aad ku xisaabtamaysid xaqa ilaahay waad ku toosnaan xuquuqda bini aadamkana waad iska ilaalin xaqa ilaahay inaad ku toosnaataa waxa u sababa waa alla ka cabsi waa inaad garataa ilaahay marka u horraysa xuquuqda bini aadamka inaad iska ilaalisaana waxa u sababa waa inaad garataa aakhira inay jirto lagula xisaabtamayo haddaad ilaahayna xasuusanayn aakhirana aad xasuusanayn noloshaada adduunyada waxay noqonaysaa kacakuf waad kacakufi noloshaada diintaaduna waxay noqon istiqaamo ma yeelanaysa sida diinta istiqaamo ku yeelan maysa diinta istiqaamo inaad ku yeelataa oo diintaada ku toosnaataa alla ka cabsi baa u shardiyaya maaragtaan inaad aakhirada kula weynaato